gudoomiyaha guddiga maamul dhisidda baarlamaanka Soomaaliya waxa uu dhaliilay qaabka dowladda federaalka Soomaaliya ay u mareyso shirka dib u heshiisiinta ee gobolada Jubbooyinka ee lagu wado dhawaan inuu qabsoomo sida faahinta warkan ee magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Nimco Maxamed Bashiir oo Somali Channel halka uga soo waranta xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah gudoomiyaha guddiga maamul dhisidda ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi uu siiyay TV-ga Somali Channel waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo uu dhawaan ku tagay safar waxaana xildhibaanka oo ka hadlayay isfaham waaga soo kala dhaxgalay dowladda federaalka iyo maamulka ka arrimiya gobolada Jubbooyinka oo dhaliilay qaabka ay xukuumaddu u mareyso shirka dib u heshiisiinta gobolada Jubbooyinka runtii waxaan isleeyahay miscommunication ama qaab communication xumo ayaa jirta dowladda iyo maamulka Jubba heshiis bay soo wada galeen heshiiskaasina wuxuu ka bilowday is-arag iyo wada hadal mas'uuliyiinta dowladda ama heer baarlamaan ha noqoto ama heer maartay dowladda federaalka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale iyo maamulka Jubba ha noqdo markii dambana Addis Ababa lagu soo saxay Addis Ababa agreement ina barnaamijkiisu barnaamij taxan weeye oo in markii Addis Ababa lagu saxeexay maamulka Kismaayo ee Jubba ay yimaadaan gobolada Jubbooyinka maamulkiisu inay yimaadaan Muqdisho ka bacdina markaa kadib Kismaayo lagu shiro ayuu barnaamijku ahaa sidaad ogtiin maamulku way yimaadeen mas'uulka ugu sarreeya iyo mas'uuliyiin badan oo la socota way yimaadeen halkan markii ay yimaadeen waxa ay la kulmeen dhammaan qaybihii bulshada iyo siyaasiyiinta iyo cid walba markii dambana waxa weeye xagga la isula noqday shirka labaad runtii dadku waxay aad u daneynayeen in lagu qaban doono magaalada Kismaayo inta aan ka warhayo xukuumaddu waxa ay ku dhawaaqday in shirka lagu qaban doono Xamar haddii dhinac laga eego waxba dhibaato kuma jiraan in Xamar la isugu yimaado lagu shiro ama Kismaayo lagu shiro ama magaalo kale lagu shiro dadka Soomaaliyeed kalsooni baa loo baahan yahay marka waxaan isleeyahay miscommunication baa jira waxaad moodaa in meelaha qaarkood xoogaa degdeg uu ku jiro oo wax la degdegayo laakiin waxaan rabnaa in laga baxo waxyaabaha isriixriixa iyo isdhaliisha iyo waxyaabihii muddooyinka la soo dhaafay jiray in laga baxo oo la isla jaan qaado xildhibaanka oo sidoo kale aan wax ka weydiinay burbur la sheegay inuu ku yimid heshiiskii magaalada Addis Ababa ku dhaxmaray dowladda federaalka iyo maamulka Jubbooyinka ee uu hogaamiyay Axmed Madoobe ayaa ku jawaabay khilaafa oo ka jirana ma jiro wax isbedel oo ka jirana ma jiro haddii cid isku dayday inay wax kale soo dhexgelisana laga yeelayo sababta heshiiskani waa heshiis caalami ah dowladda Soomaaliyeed iyo maamulka Jubba ay kala saxiixdeen wadamada African Union ku waa support gareeyeen European ku waa support gareeyeen dowladda Mareykanka statement bay ka soo saartay shacabka Soomaaliyeed uu taageeray dadweynaha gobolada Jubbooyinka waa darkiisay inay si maartay wada jir ay u taageereen Muqdisho markii la yimid waa ogtahay oo maamulka Jubba markii ay halkan yimaadeen sidii loo soo dhaweeyay iyo sida maartay looga wada qayb qaatay iyo markii ugu dambeysay oo filayay inaad joogteen xafladii lagu qabanayay City Plaza gunaanadka dadka shacabka reer Muqdisho joogay ee Jubbooyinka ka yimid waxay sheegeen in gogashii la laabay Xamar Taalay loona raray maxaa la yiraahdaa Jubbooyinka waxa la filayayna taas ay ahayd haddii loo baahdo in shir la qabtana mar walba waxa loo baahan yahay in la isu hoggaansamo mar walba waxa loo baahan yahay in la isu qabsoomo mar walba waxa loo baahan yahay in compromise uu jiro Cabdirashiid Xidig oo ugu dambeyntii aan weydiinay suurtagalnimada qabsoomida shirka dib u heshiisiinta Jubbooyinka ee ay xukuumaddu iclaamisay in lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta dowladda in la tashi ay la sameeyso maamulka hay'adaha Jubbooyinka si la isugu waafaqo halka rasmiga ah ee la dhigayo gogasha shirkaasi loo baahan yahay in laga hadlo waxyaabaha factiska ee xaqiiqda ee jira shakhsiyaadka hadda shirka qaban qaabinaya oo kale qaar badan oo kamid ah maxaan ku yiraahdaa waxa la rabay inay xiriir sameeyaan oo ay la sameeyaan mas'uuliyiinta sarsare committee baa la magacaabay halka laga magacaabay committee-gu waxa la rabay inay la xiriiraan dadka kale ee mas'uuliyiinta maamulka gobolada Jubbooyinka oo ay ka wada hadlaan sidee shirka loo qabanaya ayaa ka soo qayb galaya goorma la qabanaya xagee lagu qabanaya waxaas oo dhan inta aan meediyaha iyo loo geynin in horta laga wada hadlo ayuu ku haboonta aad u mahadsan baaqaygu marka ugu horeysa waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed muslimiinta meel kasta oo joogaan iyo muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan waxaan dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed dawladdiisa iyo maamuladiisa iyo deegaamadiisa intaba ay isu taago
ka u diyaar garoobo xilligan adag ee lagu jiro in laga gudbo ha loo istaago in nabadda laga wada shaqeeyo ha loo istaago in dib u heshiisiinta laga wada shaqeeyo ha loo istaago in amniga la sugo waxaan odhan lahaa xilli wanaagsan oo caalamku Soomaaliya u soo jeedo ayaa la marayaa gobolada Jubbooyinkana gaar ahaan dadka ku nool waxaan u soo jeedin lahaa inay gacmaha isqabsadaan. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Channel, Muqdisho.